kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay qorsheynaysaa inay u dhaqaaqdo tababaraha xulka qaranka dalka Ingiriiska Gareth Southgate xilli ay ku guda jirto raadinta tababarihii sida joogtada u bedeli lahaa Jose Mourinho. sidoo kale tababaraha kooxda Atletico Madrid Diego Simeone oo qandaraaska uu kula jiro kooxda reer Spain uu ka harsan yahay 18 bilood oo kaliya ayaa ah liiska kooban ee kooxda Manchester United u soo xulatay inay noqdaan tababaraha xiga ee sanadka soo aadan. kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa madaxiisa dul dhigtay 310 milyan oo pound weeraryahanka xulka qaranka dalkaas Ingiriiska Harry Kane xilli warar suuqeedku ay la xiriirinayaan xidigani in xiiso ba'an ay u qabto kooxda Real Madrid. 25 jirkan ayaana ah hogaamiyaha kooxda Tottenham iyo xulka qaranka dalkaas Ingiriiska. kooxda Arsenal ayaa u sheegtay dhigeeda Juventus in ay bixiyaan 18 milyan oo pound haddii ay doonayaan in xidigeeda qadka dhexe ee Aaron Ramsey ay la seexdaan bishan January inta lagu guda jiro haddii kooxda reer Talyaani aysan sugi karin in si bilaash xidigani ay kula seexato marka xil ciyaareedkan uu dhamaado. 28 jirkan u dhashay dalkaasi Wales ayaana heshiis hordhaca oo muddo 5 sano ah la gaaray kooxda ka dhisan magaalada Turin ee dalkaasi Talyaaniga. kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa waxa ay gurgurin doontaa weeraryahanka kooxda Chelsea Eden Hazard oo 28 jir ah iyo xidiga kooxda Tottenham Hotspur qadka dhexe kaga ciyaara Christian Eriksen oo 26 jir ah marka xil ciyaareedkan uu dhamaado xilli xidigahani labada ay qandaraaskoodu ka harsanaan doono muddo 1 sano oo kaliya. kooxda Maringuiska ayaana doonaysa in lacaga jaban ay xidigahani kula soo seexato xil ciyaareedka soo aadan. kooxda Tottenhamna waxa ay barbarayn doontaa lacagaha kooxda Paris Saint-Germain ay ugu yabooday xidiga qadka dhexe kaga ciyaara xulka qaranka dalkaasi Holland iyo kooxda Ajax Amsterdam Frank de Jong si uu bedel ugu noqdo xidigan 22 jirka Christian Eriksen oo macquul ay tahay inuu ka tago kooxda Spurska. kabtanka kooxda kubadda cagta Manchester United Antonio Valencia oo 33 jir ah ayaa kooxda iskaga tagi doona marka uu dhamaado xil ciyaareedkan. xidigan ayaana kooxda ka dhisan garoonka Old Trafford qandaraaska kula jiro waxa uu yahay mid dhacaya kooxda ayaana diyaar u ahayn inay heshiiskiisa ay u cusboonaysiiso. kooxda Inter Milan ayaana xiiso baan u qabta in xidigani u dhashay dalkaasi Ecuador ay geyso garoonka San Siro Stadium. kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin AC Milan ayaa sidoo kale isku diyaarinaysa inay u dhaqaaqdo saxiixa xidiga qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Manchester United iyo xulka qaranka dalkaasi Belgiumka Marouane Fellaini oo 21 jir ah. Chelsea ayaa sabka u gashay rabitaanka xidiga qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Paris Saint-Germain Adrien Rabiot xilli 23 jirkan u dhashay dalkaasi Faransiiska uu yahay mid kooxda Barcelona ay si weyn u baadigoobayso. Rabiot ayaana ka diiday in qandaraaska kooxda Paris Saint-Germain uu u kordhiyo xilli qandaraaskiisa uu dhamaanayo xil ciyaareedkan marka uu soo idlaado. kooxda Juventus ayaa ka diiday in Chelsea yabo ay u soo bandhigtay oo ahaa in xidiga weerar kaga ciyaara xulka qaranka dalkaasi Spain Alvaro Morata oo 26 jir ah ay kaga bedelato weeraryahanka 30 jirka ah ee milkiyadiisa iska leedahay Juventus sida deentana ugu ciyaara kooxda AC Milan Gonzalo Higuain. xidiga qadka dhexe kaga ciyaara xulka qaranka dalkaasi Brazil Philippe Coutinho ayaa go'aansaday inuu baaqi ku sii ahaado kooxda Barcelona inkastoo xidigaasi wararku ay sheegayeen inuusan ku faraxsanayn garoonka Camp Nou. kooxda Manchester United ayaana xidigani xiiseynaysa inay dib ugu soo celiso 20 jirkan hore ugu ciyaaray kooxda Liverpool horyaalka dalkaas Ingiriiska ee Premier League. daayarka garbaha ka ciyaara ee u dhashay dalkaas Ingiriiska Callum Hudson-Odoi oo 18 jir ah ayaa u sheegay kooxdiisa Chelsea inay u ogolaadaan in xidigani uu ka dhaqaaqo kooxda Blues si uu ugu biiro isbuucan kooxda Bayern Munich oo xidigani doonaysa inay gacanta ku dhigto saxiixiisa. xidiga Chelsea iyo xulka qaranka dalka Brazil garbaha kaga ciyaara ee William ayaa waxaa target ka dhiganaysa kooxda ka dhisan horyaalka Chinese Super League ee Dalian Yevang. 30 jirkan ayaana sidoo kale waxaa doonaysa kooxda Barcelona. Arsenal ayaa soo gabagabayn doonta saxiixa xidiga qadka dhexe kaga ciyaara kooxda Barcelona Dani Suarez oo 25 jir ah toddobaadkan gudihiisa.
aydoon labada kooxood ay ku heshiin doonaan in marka hore xiddigan kooxda Emirates ka dhisan uu si deena ugu tago halka haleelad soo aadana ay kooxdaasi si toos ah u iibsan doonto.